dadka ku jecel waa kuwa kor kuu qaada marka ay dareemaan in sharaftaada hoos loo dhigayo kuguna dhiirigeliya shaqada marka aad u baahan tahay qof horay kuu riixa waa kuwa ku dhageysta marka aad u baahan tahay nafis way ka qosolisiiyaan marka ay xaaladdu kugu adag tahay haddaba waxaan idin soo gudbinaynaa 7 qof oo kamid ah dadka ku jecel oo aad u baahan tahay inay noloshaada ku hareersanaadaan soo gudbinta barnaamijkan waxaa gacan ka geystay shabakadda caanka ee caashaqa.com waa shabakada aad ka helaysid wararkii ugu dambeeyay aflaamta kala duwan gaar ahaan hindiga turkiga iyo waliba qaybaha kale ee dunida aflaamteedu ay ka kooban tahay qofka ku dhiirigeliya dhiirigeliyuhu waa saaxiibka aaminsan inaad tahay qof cajiib ah waa uu ku aaminsan yahay waana kugu dhiirigeliya wax walba oo aad sameynayso xitaa marka ay xaaladdu ka qasan tahay waxa uu jecel yahay inuu hore ku riixo mar walba waa garabkaaga marka aad wareersan tahay waxa uu kugu taageeraa hadalkiisa xikmadda badan ee sida kalgacaylka leh kugu sheega 2 qofka hore ku riixa oo horumarkaaga ka qayb qaata qofka hore ku riixa waa qofka jecel inuu ka soo saaro waxa ugu wanaagsan ee aad gaari karto qofkuna hore ayuu ku riixayaa si dadban oo wanaagaaga ayuu jecel yahay waxa wax ka weydiiyaa yoolkaaga nolosha hadafkaaga waxa uu yahay waxa uu had iyo jeer jecel yahay inuu awoodahaaga ku tuso wuxuuna jecel yahay inaad ku dhaqanto halbeega sare ee aad naftaada u dejisay waxaana kugu riixaa inaad noqoto qof mas'uul ah marka uu arko inuu gaabis kaaga jirana kaagama aamuso wax buu kuu sheegaa 3 qofka sirtaada kuu ilaaliya waa qofku jecel oo doonaya in marwalba uu ku dhageysto waxa ka dhex guuxaya waxay doonaan ha noqdaane waxa daruuri ah inaad noloshaada leedahay qof aad ku sir qarsato oo aad agtiisa ku nafisto qofkaas oo aad og tahay inaanu marnaba ku dhibaateynaynin waa qof aad ku kalsoon tahay oo habeenkii saqbarkii aad la hadli karto oo si wanaagsan kuu dhageysta 4 qofka naftaada firfircooni geliya waa qof nolosha iftiinkeeda aad ka daaranayso waa qof kugu dhiirigeliya inaad riyooto aad ku dadaasho sidii aad riyadaada aad ugu mirdhanin lahayd waxaanad ka heshaa tamar aad naftaada ku hormariso waxaadna ku baranaysaa inaad weligaa isdhiibin 5 ku dayasho mudan waa qof horey u soo sameeyay waxaad doonayso inaad hadda samayso waxaad ka baran kartaa wadooyinka guusha iyo kuwa guuldarada wuxuuna kaa garab siinaya inaad ka fogaado qaladaad kasta oo ku ciryaamin kara waa qof ku tusinaya inaad gaari karto waxyaabo badan oo cajiib ah waxa uu noqon karaa macallinkaaga waalidka ama saaxiibka da'weyn 6 qofka aad khatarta u wada bareeri kartaan qofka saaxiibka ah ee jecel inaad khatarta u wada bareertaan ee aad wax walba ogol inaad si wada jir ah u samaysaan marka aad maalgashi samaynayso wuu ku garab taagan yahay si kasta oo maalgashigaas u khatar badan yahay 7 saaxiibkan ugu wanaagsan waa qofka wax walba oo noloshaada ku saabsan wax ka og oo faahfaahin walba la socda xaalad walba garabkaaga taagan waxa uu jecel yahay inaad horumar gaarto waana uu kugu dhiirigeliyaa dhaqdhaqaaq walba oo dhanka horumarka aad u qaado